diyaargarowga soo dhaweynta madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa laga dareemayaa magaalada Garowe ee Puntland. Haddaba war arrinka ku aadan waxa magaalada Garowe nooga soo dirtay wariyaha RTN Nimco Maxamed Bashiir oo howlo shaqo Garowe ku joogta. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa imaatinka ku imaanayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed caasimadda maamul goboleedka Puntland Garowe. waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow. diyaargarowga ugu dambeeyay ayaa ka socda magaalada Garowe oo lagu wado in maalinimada berita uu yimaado wafdi heer qaran kaas oo hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wufuud hordhaca oo kala duwan ayaa maalmihii u dambeeyay soo gaarayay magaalada oo markii ugu horeysay martigelin doonta madaxweyne Farmaajo. مسؤولين كترسن دولة الدحية جوتا كمذا عيدا كحوجة جارهان إلى الله جاركا مدحوينها يترس حفين وان كمذها أيامات اللجوس ودوية جد ديارها مجال الجروي معمول كي شعب كبوتلان أي سوين وجود ديار جروب يسوع دوين مدحوينها جمهورية الصومالية أنت بدن ودوين كمجال ذا أي لجوت حي سور ذا مدحوينها أي بورر يكو حردينهن هل كدقية كل دوان واللجوس ودوين يا مدحوين فرماجو. waxaan si kaliya laaba oo sharaf leh u soo dhaweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Professor Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan leeyahay mudane madaxweyne ku soo dhawow dalkaagii, ku soo dhawow dadkaagii, ku soo dhawow bulshadaadii. haddaanu nahay shacabka Puntland aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa, waana ku jecelnahay. waxaan leenahay ku soo dhawow magaaladaadii weeye. Garowe waa magaaladaadii, Puntland waa waddankaagii, dadku waa dadkaagii, aad baan ku jecelnahay. soo dhawow madaxweynaha aad baa u soo dhaweynaa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waa markii ugu horeysay oo Puntland imaanayo madaxweynaha kaliya oo intii uu xilka hayay waxyaalo isbedel muuqda qabtay ayuu ahaa. 9 bilood gudahood ayuu waxyaalo badan oo la taaban karo ku qabtay. madaxweynahan waa madaxweyne u baahan in lagu daydo, istidiyaduna ay ku daydaan. waana soo dhaweynaynaa madaxweynaha. waxaan leenahay mudane madaxweyne waddankaaga hooyo, dhulkaaga hooyo, dadkaaga u imow, soo dhawow, kuna soo dhawow magaalada caasimadda Garowe. madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu jooga magaalada Garowe kulamo la qaadan doona madaxda maamulka Puntland isagoo sidoo kalena booqan doona qayb ka mid ah deegaanada Puntland. Nimco Maxamed Bashiir RTN magaalada Garowe.